kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaartana dhegaysanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijkeeni ka faa'iid wayna toddobaadkan kusoo qaadan doono qodob faa'iido inoo leh toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa faa'iidada caafimaad ee uu baamiyo dhaleeruhu u leeyahay jidhka bini'aadamka waxaanaynu halkan ku sharixi doonaa 6 qodob oo faa'iido taama u leh bini'aadamka qodobka koowaad caabuqa dhuunta baamiyaha waxa uu daawo u yahay xanuunka ku dhaca dhuunta sida infekshanka iyo xanuunada la midka ah oo sida xanuunada infekshanka sanbabada ku dhaca iyo wixii lamid ah qodobka labaad dhiigkarka baamiyuhu waxa uu ku jira maado loo yaqaano uric acid oo hoos u dhigta cadaadiska dhiigga maadadan waxaa kale oo laga helaa saliidda saytuunka qodobka saddexaad caafimaadka uurka hooyooyinka uurka leh waxaa loo qoraa daawo loo yaqaano folic amaba folic acid taa oo caawisa koriinka ilmaha uurjiifka sida awgeedna baamiyaha waxaa ka buuxda maadada folic waxaana loogula talinayaa hooyooyinka uurka leh inay badsadaan baamiyaha si ay uga helaan faytamiino ku filan koritaanka ilmaha uurjiifka qodobka afraad aragga amaba aragga indhaha baamiyaha waxaa kale oo uu hooyahay aragga iyo caafimaadka maqalka sababtuna waa vitamin A oo ka buuxa iyo antioxidant oo ah sunsaare aada u sarreeya qodobka shanaad lafa xanuunka waxaa la aaminsanaan jiray inuu baamiyuhu xidhiir la leeyahay xanuunada kala goysyada ku dhaca markii la baadhay kadib laakiin waxaa la ogaaday in markii la uumiyo baamiyaha inay dhasho maado lagu yaqaano sahli oo u roon kala goysyada qodobka lixaad xididada xanibma baamiyaha waxaa ka buuxa vitamin C kaas oo ka hortaga inuu dhaawac gaadho unugyada jidhka khaasatan xididada baamiyaha waxaa kale oo uu wax ka taraa dheefshiidka kolestaroolka sonkorta iyo wixii lamid ah dhegeystayaal intaa waxaan toddobaadkan kusoo koobaynaa barnaamijkeeni ka faa'iid waynu toddobaadkan kusoo qaadanay faa'iidada baamiyaha dhaleeruhu u leeyahay jidhka bini'aadamka intaynu kan ku xigla kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabada